Chief Caaqil Maxamed Jaamac Xasan oo kamid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag ee ka soo jeeda deegaanka Laasqoray ee gobolka Sanaag ayaa maanta maruu warbaahinta la hadlayay waxa ugu horreynba ka hadlay ergooyin madax dhaqameed oo ku sugan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kuwaasi oo sheegay inay wadaan danaha gobolada bariga Soomaaliland isla markaasina loo baahan yahay in xukuumadda Muuse Biixi Cabdi u dheega nuglaato tabashooyinka iyo waxa ay tabanayaan madax dhaqameedkaasi isagoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inay si dhaqso ah ugu dhameeyo tabashooyinkooda maadaama uu yiri ay wadaan arrin ay reer Sanaag kamidaysan yihiin waxaana soo arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya hadaladiisi kamid ahaa anigoo ku hadlaya magaca dhaqanka gobolka Sanaag Chief Caaqil Maxamed Jaamac Ali Xasan waxaan ku hadlaya afka gobolka Sanaag iyo saaxilba xukuumadda waxaan u sheegayaa wafdida aanu soo diranay ee labada gobol ka socda waxyaabaha ay u socdaan ee horumarka ah inay u dhamayso si degdeg ah madaxweyne taa waxaan qabaynaada shuruudba ku xidhay sugeynaa reer Sanaag ahaan way isku raacsanahay yaasha iyo hawsha ay wadaanba waxaanu aad iyo aad uga sugeynaa xukuumadda inay wax midho dhalan noqoto si aadana waanu uga sugeynaa iyana waxaan leenahay si degdeg ah intaanay edin mayn soo gelin inaad xoga qabatid madaxweyne ixtiraafka Soomaaliland waxa ku xigay gobolada bari waa luul tabashadooda waa si degdeg u dhamaysaa gaar ahaan waxaad xooga sii saaraysaa badan iyo buuhoodle iyo gobolka Sanaag aan hadda ka hadlayo ixtiraafka naga hayno meel kale baa ka dooni walaa imaaraad walaa bibi walaa Itoobiya intaas ku xidhan waxay tabanayaan aad u dhamaysid waxa ku xidhanna wala diyaar waana go'aan reer Sanaag ku soo tashaday oo ku dhan yahay ana ugu dambeeyay aniga shaambadii maanta ku dhuftay saamiga xukuumadda haddaan reer Sanaag nahay halkaasaan uga fadhinaa baasha haddaan rag wax cadaalad baa deeqda Soomaaliland loo dhan yahay oo cadaalada baa lagu helayaa horumar iyo ixtiraafba haddii inta la waayo yaa ma jiraan waxaan leeyahay gobolada bariga waa in waxay doonayaan aan cidi soo taagin Barkad Maxamuud Geedi